سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا قيمها iyo ixtiraamka inaga mudanow caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo waqti walbo idin tahayba waqtiga wacnaado waayahana ha samaado waa walaalkiin oo idin leh mar kale iyo muuqaal hor leh waad ku mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad channelka u garab taagantihiin ama aad ugu xirantiin inta waan idinkaga mahad celinaya sharaf ku noolaada meel walbo caalamka daafiisa aad kaga sugantiin waxaana idin rajaynayaa farxad qab jimca mubaarak ayaan idin leeyahay mar kale fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii ugu horeysa aad nala kulantana subscribe saar kambalelka furo fiidiyoogana noo like gareeya siina share gareeya oo asxaab badan gaarsiiya si aynu u noqono kuwa mar walba wada jooga markaasna isgarab taagan waadna ku mahadsantihiin kun jeer iyo in ka badanba maanta waxa stuudiyaha ku martiin galin doona arin dhacda la yaab leh waa ninka Sharma ahaa maxaana tolow maxaa iga yaabiyay maxay tahay sababta aan ula yaabay adiguna waa ku ogolaan doona la yaabkaas inaad la kulantid laakiin bal marka ugu horeyso waxyaabaha qaar markii aad kugu soo dhacaan ama aragtidaada ee hor yimaadaan waxa meesha ka baxaysa suurtagalnimada inay arinkaani oo jiri karo saas darteed marka naftaada waxa ay markiiba surgeon maskaxda u diraysaa in arinkaani uu yahay arin fake ama been abuur ah haddana markaad sii qaada dhigto oo dhinac walba aad kaga timaado waxaad ogaanaysaa in waxaan ay noqon karaan wax jiro maadaama aragtida ku hortaala ay tahay mid aanan markaa la sawiri kareynin ama aan la samayn kareynin oo photoshop iyo waxyaabo qaar la mid ah aan lagu samayn kareynin waa ku ogolaan doonaa maskaxdaada ayaan isticmaali doonaa muuqaalkaana si weyn ayaan ugu wada jawaabi doonaa waxaynu arki doonaa marka waxa inooga soo baxa waana wada miisaami doonaa ninka Sharma ahaa stuudiyaha bal maxuu ka qabanayaa daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير تدخلك وادي السلام الشرب بوي وحيك بدل كلام sidaynu soo wada aragnay baabaje ninka Sharma ahaa wada joogaan dad badan waxay isku raaceen inay dalka Jarmalka u yahay halka kuwa kalena ay leeyihiin ninkii baabaje ahaa ayaa Mareykanka aaday laakiin baabaje inuusan Mareykan aadin waa wax markaas iska cad oo xaqiiqo ah laakiin arrinka shakiga aanu igilisa ayaa waxa ay tahay oo aan doonaya idinkana ina bal ila eegtaan xafladii dhaceysay oo dalka Mareykanka ka dhaceysay ayaa waxay ku arkay malyuumaanka oo kamid ah asxaabta sida weyn u garab taagnaa ninkii odag ahaa ee Ismaaciil Daran okay inta kadib waxaan isweydiiyay hadii arrinku halkaas uu taagan yahay xaajana ay meeshaasi tahay suurtagal ma noqon kartaa marka in uu Sharma joogin dalka maadaama ama Mareykanka gudihiisa maadaama ninka odaga ahaa oo showgan danan isaga maanta waxba kala dhaxeeyay dhibaato sidaas darteedna uusan ka soo dhinac muuqanin sababta uu iimaan waayna waa isweydiiyay maskaxdeeda surgeon badan ay dirtay kadib waxa nafteeda ii sheegtay inay barnaamijkani uu dhaqan karo mid iska run ah macnaha mid dhici karo oo ninka odaga ah laga yaabo in uu tagi karo Germany kullay maskaxdeeda waa ku dawaqaday aad ayaa u miisaamay dhan walba ayaan kaga imi waxa markiiba ii soo baxday inuu wax dhici karo ay yihiin wali xaqiiqda hadalkan ma hayo laakiin waxa hadallada qaar oo soo taray ay sheegayaan in oo ninka odaga ahaa haysto dal kaga baxa yar ee macnaheedu inta la gaarin baasaboorka weyn green card ka dalka in la siisaas darteedna ay suurtagal u tahay inuu ka tago oo meesha uu doono kale uu tagi karo ilaa Soomaaliya mooyaan marka saas darteed inuu dalka Germany joogo yaani barnaamijyada oo laga yaabo inuu ku qabsado maadaama sanadka cusub oo wax show ay isaga soo dhagsanin waxna ay soo u dhaganin markaasna ay tahay arrinka wax dhici karo oo macquul ah lana rumaysan karo sidaas ay marka hadallada qaar ay u dhignaayeen waana midda ugu dhow marka dhabna noqon karto oo aniga nafteeda xitaa aan isiri inuu suurtagal weeyaan maadaama arrinka uu yahay kan waa suurtagal weyn u dhawaan kartaa adigu waxay kula tahayna waad ila wadaagi doontaa laakiin xaqiiqda waxa ay markaasi in badan ay suurtagal tahay inuu isaga soo bixi karo oo yimid maadaama aysan suurtagal noqonayn ama ina aamina ay adag tahay in dalka Mareykanka uu baabaje xilligan tagi karo isagoo ogeyn safarkii dheeraa oo ka qaaday dalka Sacuudiga ilaa irafaadkii dheeraa uu maray ugu dambeyntii inuu tagay dalka Germany waxa kale oo arkay muuqaal isaga iyo Liil Baliil ay ku wada sugan yihiin oo mar dhow ahaa markaas darteed ma suurtagali karto aqli galna ma noqonayso inuu markii isaga tagay waxayna u dhowdaa in Sharma laakiin waa lama laha wax kastana waa xaqiiqoobi doonaan waana la ogaan doonaa laakiin xaqiiq waxa ay tahay inuusan ka maqnaan lahayn showgii ninkii Ismaaciil Daran ahaa ee dalka Mareykanka ka dhacay ee fanaaniintii faraha badan ay isku yimaadeen
hawshii faraha badan ee meesha ka dhacday dadkana intooda badan ee markaas ay garab istaageen Ismaaciil maadaama uu in badan xabsi ku soo qaatay dalka Mareykanka isagoo diiday inuu dibadda u baxo oo markaas ka mid noqdo dadka dibadda wax ku sugo taas darteedna uu door biday inuu xabsi ku sii sugnaado ilaa iyo ogolaanshiyo Mareykanka inuu gali karo iyo inuusan gali karin laga siin doono sidaan ogeen Afrika kama uu hayaamin ninkaas wuxuu ka mid ahaa bulshooyinka ku dhaqan Soomaalida ee dalalka Yurub ayuu ka mid ahaa new mooga adduunyadii way isbedelaysaa waxaad moodaa adduunyada in dhinac kale ay u rogmayso qaar waxaad arkaysaa hadda tusaale yar ayaan idin siinayaa bal si fiican wax yar ila fiiriyo dalka Mareykanka waxa ka soo baxay amaba ka soo tagay ninkii odaga ahaa magaciisa garo dalmar yare waxa uu show ku qabsaday dalka Djibouti oo aan wada ogeyn in cawaale isaga aad loogu soo dhaweeyay hadda waxa uu ka yimid dalka Mareykanka waxa uu na yimid dalka Djibouti ayuu markaa show u yimid dadyooga qaar waxa ay ka tagayaan Yurub waxa ay tagayaan dalka Mareykanka kuwa kale waxa ay ka tagayaan Afrika waxa ay tagayaan Yurub waa duni iska rogan waxaad arkaysaa marmarka qaar dhacdooyinka markay ku hor yimaadaan in ay naftaada markiiba aysan aqbali kareenin sababtoo يعني dadkii waxa ay noqdeen dad wareeg oo ah ku jiro oo markaasi ku soo noqnoqdo oo kale halkan qofa ka baxay halkan soo galaya Yurub mid ka baxaya wuxuu tagay xagga ka Mareykan joog waxa uu ku leeyahay Yurub malahayna yara dhaanto nolol xaggaas u doonanayna marka waa arin markaasi isku soo noqnoqoto oo waanu aragnaa xitaa tusaale ahaan ma waaba aragnaaba fanaaniinta intooda badan inay isweedaartaan qaarkii Ingiriis joog waxa arkaysaa Germany uu tagaya kii Germany joogay waxa uu ka dhigsanaya Austria kaleeto Austria jooga waxa uu ka dhigsanaya Finland marka waa arrimo isku soo laablaabto sida darteed marka jahwareerka la sheegaya lagu jira dadku ay jahwareersan yihiin waxaynu rajaynaynaa horta mar walbaba wanaag iyo sharaf iyo cizi iyo in sidaan hadda aan arkayno isku garab taagan dadka fanaaniinta isku jecel yihiin in dadkana isku wada jeclaadaan dadka youtuberada ah dadka kaleeto dadka tiktokers isla ah walow aan ognahay in baasha markii meel la wada yahay yani markii hal qaybood la wada yahay oo hal nooc laga wada shaqeeyo dadka inay is jeclaadaan inay adag tahay waanu iska ognahay ka cid sheegmo uga baahna cid weydiin uga baahno oo waa iska arin cad oo bayax laakiin saas ee waxaan rajaynaynaa horta inaan marka ugu horeysa nafteena u sheegno in aysan waxbaba dhaceynin hadii awalaalka u ogolaatid libintiisa adigana waxa lagu ogolaan doonaa libintaada marka sidaa darteed isku day in aad walaalka u ogolaatid libintiisa wax walba aad ku garab istaagi kartid isku day inaad ku garab istaagtid oo markaasi aad garabkiisa ka soo muuqatid anna waxa ku hubaa amaba aan ku leeyahay way dhici doontaa in aad aduguna markaaga lagu garab istaago farxadaadana lagu la qaybsado farxadaadana farxad lagu daro marka guush hadii aad doonayso waa saaxiibka iyo walaalka iyo qof walba aad markaasi guul gaartaa inaad u hambaliyaysaa laakiin hadaa xaasid noqotid ogow adna xaasid ayaa lagu noqon doonaa ninka shar ma aha sidaan ognaa horta xaasid ma ahan nin xaasid ma ahan nin loo cabsado ma ahan nin xuma jecel ma ahan nin xumaan uga harayna ma ahan oo Ismaaciil asaga waxba kama dhaxayaan laakiin waxay u badan tahay inuu dalka Mareykanka ka soo tagay ninka odaga ahaan Yurub uu ku sugan yahay Germany reer Germany cagaha xirta macawiisada xeeta soo dhaweeyay ninka si adag u soo dhaweeyay haduu barnaamij u yimidna barnaamijkiisa ha loo fududeeyo oo hala garab istaago intaas ayaan idin dhihi lahaa aad baad u mahadsantiin reer Sariicad marba hadii aad intaan nala soo gaarteen fiidiyoga saad u dhantiin la gareysina share gareys asxaab badan gaarsiya macna meel dheer inoo gaarsiya muuqaalkan inta mid xiga ku kulmi doonaan dhamaantii waxaan idinkaga sii tagayaa jimca mubaarak